inay dadka waxbartay ee dalka ka soo tegay dib ugu laabtaan kana shaqeeyaan sidii wanaagsaneed oo garyaqaanku halkan ugu caawin jiray dadka Soomaaliyeed ayuu maantana gudaha Soomaaliya hawshaasi mid ka sii wanaagsan u wadaa waxaanu bilaabanaynaa barnaamijkeennii waxaa soo geli doona qadka ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed waxaan rabnaa intuu qadka soo gelin inaan ku sii bilaabano taageero ka muujisay ansixintii golaha wasiirada ay ansixiyeen golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaan waxaan rabaa hadda inaan u waco gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka kan ahna kusimaha gudoomiyaha jaaliyadda UK ahna Cabdullaahi Aadan Salaamullaahi welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii waxaa farxad weyn ah oo noo wada ciidda caawa inaan ku soo dhaweyno munaasabadan qiimaha badan walaalkeen maxamed faarax sadiiq oo aan runtii leenahay runtii inuu ahaa hogaankii jaaliyadda Soomaaliyeed ee East London ninkii runtii didabada u aasay wax badan inaan halkaan ku wada noolaano sababta u ahaa waxaa si mudan runtii inuu ahaa garyaqaan maxamed faarax sadiiq inuu ahaa maxamed khaliif faarax sadiiq inuu ahaa ninkii runtii ku sabab noqday inaan degno deegaankan East London la yidhaahdo ilaahay ka soke qaybteeda xagga immigrationka iyo home office-ka sidii aan nidaamka shuruucda waddanka looga baahan yahay u heli lahayn waa ugu mahadnaqaynaa waxaan mudan yahay runtii inaan mataqaanaa caawo ku soo dhaweyno xafladatan iyadoo aan weliba intaas ku ekeen aan ku taageerayno dowladda cusub ama golaha wasiirada ee dhawaan ugu dhawaaqay islamarkaana laga ansixiyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya intaa kadib anigoo ku hadlaaya oo aan kusimo u ahay gudoomiye Maxamed Ismaaciil Atoore oo hadda dalka Soomaaliya ku maqan aan rajaynaya inuu soo noqon doono dhawaan iyo keyga gaar oo aan xubin ka ahay jaaliyadda xogayna aan ka ahay xogayo u ahay iyo anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladda tan runtii ay rag aada u qiimo badan oo mahad guure iyo mataqaanaa aweys xajaweys raggaas ay ka mid yihiin xubno ay ka mid yihiin oo la soo koori karin Samatar iyo Maxamed Sheekh Daahir iyo rag fara badan oo inta aan soo koori karin ay ka mid yihiin Sandeere iyo rag badan oo runtii dhalinyaro ahaa iyo tiimka runtii fanaaniinta runta caawanka maaweeli doona oo Cabdisalaan oo kacayo Cabdisalaan Macalin iyo garabaad garyaqaanka iyadoo munaasabada ay noocaas ku aadan tahay xagga TV-ga Soomaaliya TV National University TV-na ay runtii ay dadka ama TV-ga caawa cover gareynaya oo aan kulli aaminsanahay inay kasoo qaadan doonaan idaacadda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما البعث مرتب وضع قويم هذا دمانتين سيدنا ونحسن وديس الويسين سيد أو بخصوص طبعا صاحب بدي هراء أنا تبي سؤالك أنا فرح سنة عاي محايا لي شغال قران ودلك Soomaaliya wax dan u ah ummadda Soomaaliyeed ayaan hayay intaan maqnaa waxaan idin xusuusinayaa oo jeclaha inaan idin wargeliyo maadaama dalka ka imid rijo aad weyn oo wanaagsan baa jirta mustaqbalku ma madooba mustaqbalku waa iftiinsan yahay mustaqbalku nuur buu leeyahay
rajadu aad bay u fiican tahay wixii la soo marayba dalka dhowr iyo 20 sano hadda rajadu wadadii saxda ahayd ayaa la haystaa qaabka dawladdu u dhaqmayso ama meel fiican baa wax la gaarsiiyey meel baa wax laga soo qaaday qolo meel bay wax keentay hadda laba wadu mid qabsadaa ama dhinaca baarlamaanku aadaa ama dhinaca madaxweynaha ayuu aadaa hadduu sharci iyo arrin la xiriirtay mas-uul u yahay dhinaca baarlamaanku aadaa ama golaha shacabka si ay u siiyaan dadka kalsoonida ama ay u ansixiyaan ama ay u meel mariyaan kadibna madaxweyne aadaa wixii maamula ama sidaas ayaa loogu dhaqmaa nidaamkaasay leedahay wax cid iska samaysataa ma jirto wax ninkani baan ka gaara ma jirto nidaamkaas ayaa meel mariyay walaha wasiiruhu meel mariyeen oo hoggaan u yahay ra-iisul wasaaruhu markaa jiray haddana uu u yahay ra-iisul wasaare cusubi walaha shacbiga in badanna waa meel marsiiyey inna waxay sugayaan in la meel marsiiyo ayib arrintu marka xagga amniga wuu soo raynayaa waa wanaagsan yahay runtii xagga bulshada wax badan baa laga qabtay fikraha uu fadlanka ka qabteen magaalada waxaa leedahay yurub magaalada ka joogta iyo ameerika runta magaalada sheegaan infrastructureka hadday airport tahay hadday dekan tahay hadday magaalada dhexdeeda tahay waxweyn baa laga qabtay ama laga wadaa waqtigan xaadirka airportka shaqo cusub baa hadda loo diiday oo dowladdu heshiis la gashay waxay wadaatay inay dib habeyn ku sameeyeen isagoo dhan bisha 8 bilood ay qabsadeen muddo waxaan rajeynayaa muddo aan dheeray bisha April isbedel in ay doontaan airport sidoo looma hoqeeyo sidii laga qabsan waa la wada hawsheeda in la balaariyo adduunka meelo badan baa wax loo raadsaday fikrad fiican baa muuqata dhinaca kale ee dibadda ama adduunka xiriirka caalamiga guul weyn baa isaga laga gaaray waa ogtihiin in barnaamij new deal ama higsiga cusub in dowladda Soomaaliya ay diyaarisay adduunkana ay qortay guulna ay ka gaartay waxaan dad Afrikaan weli la siin ama loo ku gaartay in mar wax la hubo oo diyaarsan ay mar la tagto adduunka meel marna waxay la tagtay waxa la yiraahdo 5 PSPs 5 PSPs means peace building and state building goals we shall inclusive policy, siyasad midaysan, security, justice, economic foundation, services and revenue and services. Shantaas arrimood oo meelood oo goobood oo ilood ay dowladda Soomaaliya ay geysatay waxa laga qaban lahaa ay sheegtay 3 sano oo soo socota 2013 ilaa 2016 ayaa go'aan laga gaaray adduunku waa ku farxay wixii la hortagay dowladda Soomaaliya dhaqaale badan baa lagu ogolaaday ilaa 2 bilyan ee siyaadad caalam ayaa lagu ogolaaday meelaha kale sida Mareykanka dowladdu qabatay iyo marka uu soo waxaan u qarinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Abdiweli Sheekh Axmed Maxamed doorashadiisii asxaabtiisii iyo dowladda uu dhisay ama uu soo magacaabay Abdiweli waa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muddo sugnayd meesha hadda ay joogto hadda hawshu ay marayso kor loo qaadi doono oo lagu filayo wadamada carabtu xulanqabtay saaray lo'dayna joojiyeen arigeena rabay inay ku daraan ayaan xusuustaa 84 waqtigaas caadiya dadaal badan buu runtii sameeyey wuxuu ku guulaystay in lo'dii ugu helo irda kale iyo suuqyo kale sida Masar iyo Yaman oo dhoof badan 100,000 lo'dii ay dhooftay arigiina wuxuu kala xajiyay ciddii qusaysay iyo wadamadii kale jiray suuqyada ugu horreeyay wuxuu ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ka qabsatay in xooluhu ay ku dhinaca mashruuca iyo qoyahaniinta kale
uu ahaa mashruucii uu hogaanka ka ahaa mashruuca sugayda caafimaadka xoolaha livestock marketing health project runtii anigu ragga madaxda ka ah ayaan ka mid ahaa oo agaasimayaasha ka mid ah waxaan wuxuu siiyey fursad wanaagsan dadka intellectualska aqoonyahanka aqoontooda korba u qaaday dhammaantood wuxuuna siiyey courses ama waxbarasho dheeraada inay helaan dalka dibadiisa u helaan ama dalka gudihiisa ay ku helaan wuxuu keenaa beeraha ayaa noqonaya oo muusku ugu horreeya waaxdaasi hadday ummadda soomaaliyeed ka dhaawacmatay cabdiweli waa daweeyey kormoo lagu qaaday waxaan qabaa qaranka soomaaliyeedna dhammaantiis maantay maadaama uu dowladdii soomaaliyeed hoggaan ka yahay inuu gaarsiin doono iyadana meel wanaagsan horkacna ku samayn doono intaa waxaa dheer maxaa fursada oo u furan ragga nooceena ama dadka ragga nooceena rag iyo dumarba aan loo macnihiisa iyo habka loo dhaqmaa waa taqaanay dadkii soomaaliyeed walaalihii gudaha ku jira waxay u baahan yihiin idinkaa fursadaas haystaa inay ka faa'iidaysaan in wixii aad geeyeen u sheeg